بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leeyahay ilaahay baa mahad iska leh waxaan ku suganahay banaanka magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug halkan waa meesha u jeedaan jawigeeda naqaa iyo quruxda iyo roobabaada ay ugu socdaa waa xilli roobaadkii waxaan ku faraxsanahay runtii inaad dalxiis u baxno markii waqtiyada noocan oo kale la joogo waxay ku tusinaysaa in dalka iyo dadkuba ay yihiin nabad iyo wanaag iyo sharaf ka jirto waxaan leeyahay dadka tahriibaya anoo nimcadan iyo noloshan ku haysta dhulkayga hooyo inaan banaan u tahriibo oo nin gaala wuxuu ka shaqeeyay ama nin ajnabi wuxuu ka shaqeystaan u tahriibo ceeb iyo sharaf darre inagu tahay waqtiyada afraaqada leedahay kala halkan ku baashaal jawi ku qaado shaqooyinkaaga ku qabso waqtiyada kalena marna gurigaaga iyo reerkaaga iyo familkaaga ka shaqeey marna dadkaaga iyo bulshadaada iyo deegaankaaga u shaqeey waxaan leeyahay dhulka hooyo ah meel loo soo tahriibo waxaan leenahay idinku soo tahriibo anigu idin soo tahriibi mayne halkan u baahan meel loo soo dalxiisto meel loo soo damasho ilaahay nimcada iyo hawada ina siiyay iyo waliba deegaankaas aan cid inaga leh jirinin baa mahadaas u sugnaatay kuna faraxsanahay joogistiisana ku qanacsanahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nabada iyo baraaraha ay samaha badan oo runtii bahdii Galkacyo halka Firdawsa taagan oo ah Puntland TV Cabdullaahi Yare SBC waxa ka jooga asxaab kale Kowsar iyo team badan tobaniyo qof baan nahay waxaan leeyahay teamka Mudug Films iyo dhamaanba wariyaasha Soomaaliyeed kuwa Puntland iyo kuwa gobolka Mudug guuleysta dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa bahda saxaafadda gaar ahaan asxaabtayda wada socono iyo Mudug Films waxaan aad ugu faraxsanahay muddo arkay meel doog aad u qurux badan inaan joogo meel doog saan oo kala ah waliba dalkayga hooyo ah anigu waligeed dalkayga hooyo ka bixin waan ugu faraxsanahay waan ku faanayaa in wadankayga hooyo nimcadan oo kale ay taalo dadka kale ay nimcadani ka maqanto ilaahay ka qariyeen waxaan rajaynayaa in ilaahay tuso marka waxa idin dhihi lahaa adduunka meel kasta joogtaan naga daawanaysan imaada dhulkiina hooyo waxaad inaba qiyaas kartaan maahane ku raaxaysta dhulkiina hooyo waxaan mar labaad u mahad celinayaa Mudug Films xaaladaha waa iska okay meeshan waa meel qurux badan oo doog ah in la seexdaba ku fiican fahmayste waa maasantiin halkaan aad u jeedaan waa banaanka magaalada Galkacyo waxa ku sugan aniga asxaab fara badan oo wariyaal oo iska soo raacnay magaalada Galkacyo oo ka kala socda xarumaha warbaahinta TV-yada idaacadaha iyo wariyaal kale madax banaan waxaan ku wajahnay magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland halkaad u jeedaan waa meel aad u qurux badan waa meel ku fiican in loo soo damasho tago dhalinta isku soo sawirayay qurbaha iyo guryo aysan lahayn iyo goobo aysan lahayn waxaan anagu isku soo wareena waa dal iyo deegaan anagu aan u leenahay waxaan mar kale hambaliyo iyo bogaadin u jeedinayaa dhalintii la socoto maanta halkan aanu ku damaashadayno oo aad u jeedaan jawi aad u qurux badan oo aysan cidna ka lahayn oo adigu aad leedahay waxaan leeyahay jooga dhulkiina hooyo kuna imaansada mar labaad waxaan hambaliyo u dirayaa bahda warbaahinta ee Mudug Films Mudug Films